ciidanka qalabka sida wadanka Jamhuuriyadda Djibouti oo la aasaasay 6 Juun 1977 ayaa maanta waxa ay u dabaaldegeen sanad guuradii 39aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidankaasi. munaasabad siyaarsara loo soo gaarsiimay ka dhacday taliska guud ee ciidanka qalabka sida ee gobolka Cali Sabiix ayaa waxa ka soo qayb galay taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida gobolka Cali Sabiix gaashaan la dhexe Cabdiwaasac bin Maxamed iyo gudoomiyaha gobolka Cali Sabiix Maxamed Waabari Casoowe iyo gudoomiyaha maamul goboleedka Cumar Axmed Wacays iyo taliyaasha ciidanka booliiska iyo jandarmeriga gobolka Cali Sabiix iyo marti sharaf kale. taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida gobolka Cali Sabiix Colonel Cabdiwaasac bin Maxamed iyo gudoomiyaha gobolka Cali Sabiix Maxamed Waabari Casoowe salaan ka qaatay qaar ka tirsan cutubiyada ciidanka qalabka sida ku sugan gobolka Cali Sabiix. taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee gobolka Cali Sabiix Colonel Cabdiwaasac bin Maxamed ayaa khudbad dheer dhinacyo badan taabanaysa oo ka hadlaysa waxqabadka ciidanka qalabka sida waxa uu kaga hadlay inta badan in la xoojiyo ammaanka iyo xuduudaha dalka. Nous rappelons nos réalisations et déterminons les orientations futures en vue de faire face aux nous tient tous à cœur, notamment la situation sécuritaire mondiale. gudoomiyaha gobolka Cali Sabiix Maxamed Waabari Casoowe taliyaha guud ee ciidanka gobolka Cali Sabiix Colonel Cabdiwaasac bin Maxamed ayaa waxay faataxada u mareen ciidankii u shahiiday iyagoo u taagan difaaca dalkooda hooyo waxaana ay tacsiyo u direen dhammaan eheladii iyo qaraabadii dadkaasi ay ka baxeen. ciidanka qalabka sida ayaa intaasi kadib waxay gaadi ka ciyaare ku soo bandhigeen goobta xafladda ka dhacaysay. sidoo kale kamay maqnayn kooxaha fanka iyo fanaaniin oo inta badan halkaas ka qaaday heeso wadan iyo dhiirigelinaya ciidanka. markii xafladda soo dhamaatay ayaan wareysi la yeeshay taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida gobolka Cali Sabiix Colonel Cabdiwaasac bin Maxamed oo faahfaahin iga siiyay inta badan khudbadda wixii looga hadlay. bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. waxa weeyaan alxamdulillah horta waxa weeyaan waxaan hambaleynayaa madaxweynaha iyo warihiisa in ministerka defense-ka generaalka Zakariya Sheekh Ibrahim generaal Asmaan Nuur Subagle generaal Ali Xasan generaal Maxamed Daahiro ciidamada sargaalada iyo sargaalka xigeenada ciidan dable meel alla meel joogan ma hambaliyaan leenahay. wax badan buu ka hadlay generaalku waxyaalo badan buu ka hadlay xagga wad xabadkooga xagga amnigan uu ka hadlay amni la'aan inay maaragtay nabad jirin ay horumar ee jirin xagga uu sheegay ciidamada horumarkoogana uu sheegay kuwa maaragtay in maanta naga jooga heel walaal naga jooga iyo naga jooga Soomaaliya wax qabadkoogii yaa laga sheekeeyay inay maaragtay maanta ay oo dhulku inta ay joogaan ee nabad tahay dariiqadii ay fureen kolka ragaas inay shaqo wanaagsan qabteen bulshada u hambaliyeen annaguna hambaliyeen dadkaas walaalaha ee shaqada qabtay. taliya waxa fooyda nagu soo haysa bishii barkeysan ee Ramadaan waxa la ogsoon yahay al-shabaab inta badan inay qaraxyo ka geysato bisha Ramadaan gudaha wadanka Soomaaliya maxaad ka leedahay? والله بيش رمضان رجعش شفتها أنت بدن بيش رمضان يدك لك خير كلا يدك مضى في الأيام بيجون دبتوا جستان وحنا ندك ولا لا يعني فوجنا كسو جدان إسكيل اللي أنا محمد دركتي حقاس إن دبتوا كانية بيش أنا إن شاء الله رمضان كريم مكلا هاي رمضان ونكسن إن شاء الله والحمد لله. محمود عثمان بلحان تي في عالمي يونيفرسال قبل كعلى سبيح ودن كجبوتي.